xildhibaano siyaasiyiin musharaxiin iyo mas'uuliyiin kale oo xilal kala duwan dalka ka soo qabto maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa baaqay soo saareen waxay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka ugu baaqeen inay xilalka wareejiyaan maadaama waqtigii talada dalka loo idmaday uu ka dhamaaday. Ambassador Maxamed Cali America safiirkii hore ee Soomaaliya dalka Kenya ahna musharax madaxweyne ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen mas'uuliyiintaasi u aqriyay warfidiyaanada. wixii ka dambeeyay 10 September saacado ka harsan yihiin wuxuu cadeynayaa inay dhamaatay sharciyadii madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna dalbanayaa in xilka madaxweyne loo dhaariyo 10 September 2016 si ku meel gaar ah gudoomiyaha baarlamaanka sida ku xusan qodobka 94 iyo 91 ee dastuurka si looga ilaaliyo danaha isburinaya conflict of interest maadaama uu ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu isku sharaxay xilka madaxweyne 5 bishii September waxa uu xilka ku wareejinayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka haddii dhacdo in loo hoggaansami waayo dastuurka Soomaaliya isbahaysigu wuxuu ku dhaqaaqayaa isagoo horkacayo dibadbaxyo nabadeed iyo dhaqaaqyo siyaasadeed ilaa uu hoggaanka ilaa uu hoggaansado dastuurka wuxuu sidoo kale dacwad maxkamadeed u gudbinayaa maxkamadda sare isbahaysigu wuxuu ka digayaa in hantida hay'adaha maamulka iyo amniga iyo warfaafinta qaranka loo adeegsado doorashada musharax Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid isbahaysigu wuxuu ka dalbanayaa ciidanka qalabka sida iyo AMISOM inay ilaaliyaan ammaanka musharaxiinta si isku mid ah gaar ahaan musharaxiinta madaxweyne iyadoo laga cabsi qabo in xiliyadan doorashada ay ku dhaan dalal siyaasadeed hadda waxa la mid tahay musharaxiinta la mid inta kale musharaxaad la mid marka kursiga waad ka degaysaa markaad ka degto hadda villa Soomaaliya dadka u dhaxaysay waad ka soo baxaysaa iyadana baabuurta bulad buruufyada inaguba ma haysano meesha aan joogno meel ka xun lagu geyn maayo meeshaas baaqaytiisa waxaanu rajaynaynaa uguna baaqaynaa madaxda qaranka oo ugu sareeyo madaxweynaha xilkiisii dhamaanaya berri mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay dhulka dhigaan kubadda inay ku kalsoonaadaan qaraarka ummadda Soomaaliyeed inaanay Soomaaliya ku celinin dib kale iyo khilaaf kale waxay tilmaamayeen baaqaasu sida ugu wanaagsan oo ugu nabdoon oo ugu xasiloon in isbedel uu dhaco